xogayaha arrimaha gudaha xisbiga macaaridka ayaa wicid maxamuud cali saleebaan ramaax oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isla markaasina maanta warbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga macaaridka ayaa wicid ee magaalada Burco ayaa taageeray shirka golaha dhexe xisbiga macaaridka ayaa shirkaasi oo maalinnimadii shalay la qoondeeyay inuu qabsamo 28 bishan waxaana xogayuhu mas'uuliyiinta xisbiga iyo sidoo kale taageerayaasha xisbiga ugu baaqay in laga soo qayb galo shirka golaha dhexe xisbiga qabsoomi doona 28 bishan go'aamadii shalay ka soo baxay shirkii hoggaanka sare ee xisbiga ucud oo isugu yimi ee lagu iclaamiyay 28 bisha soo socota insha Allah taala in aanu qabanayno shirweynihii aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynaya meel kastoo ay joogaan taageerayaasha xisbiga ucud waa diyaar baanu nahay maanta aanu joogno ay xubnaha golaha dhexe iyo taageerayaashiisuba waxay aad iyo aad u soo dhaweynayaan shirweynaha xisbiga la qabanayo maxamuud cali saleebaan ramaax xogayaha arrimaha gudaha xisbiga macaaridka ayaa wicid oo geesta kale hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu fariin u diray dowladda federaalka Soomaaliya taasoo xogayuhu sheegay in fargelin qaawan ay ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Somaliland waxaan runtii fariin u dirayaa koonfurta Soomaaliya tiisaba daryeelaa tu kala ku dara qofku markuu tiisa xaslado ee uu isagu wax yahay ayuu meel kale runtii ka hadli karaa waa ogtihiinoo dagaal aan loo aabayeelin oo dagaal siyaasadeed ayay nagula jiraan awood iskagama keen celin karo ciidan ab siyaasadeed iskagama keen celin karo xumaanta ay sii beerayaan waxaan leeyahay kuwa intay xamar tageen halkan intay shalay ka yaaceen la kiraysanaayo de gaariga waa la kireystaa fanaanka waa la kireystaa fanaannimada way dhimatay runtii in aanay dalkan waxba yeelayn madaxweynayaal baa tegey waxa tegey ra'iisul wasaareyaal dalkani mana guurayo qadiyadiisana inaan yari kuma ciyaari karo riyadiinuna runtii waa been midnimo Soomaaliyeed oo soo noqonaysaana ma jirto dalkani qarannimadiisii uu la soo noqday Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Camaar telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Burco.